السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أمد الصوماليات ملك السوجوك تام وحن كسلام يا سلامة الإسلام. لما أمد الصوماليات ملك السوجوك تام وحن كسلام يا سلامة الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جو دوميا أورك الأميرة ديك كل هذا يمقعود وأنا كان أقول باقي dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed guud iyo dibad meel kasta joogtaan oon in leeyahay maanta anigoo aad boqolkiiba boqol uga xun gabadha xildhibaanada ee diiday kana soo horjeedsatay ninka ajaanibka ah dalka la keenayo waliba baarlamankiina nin baqan iyo nin laaluush qaataa ay noqdeen iyo nin maxaa kaa galaya gabadha kaliya ee diiday sida loo weeraray ee cadaanka ah ayaan aad aniga ugu xun. waxaan kan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqayaa dhalinyaroy maanta waa maalinteeni fadhi ma yaalo dalkii in la qabsadaa la doonayaa. labada nin ee ajaanibka waa ajaanibi maaha Soomaali baan umaleeyahay farmaajo kheyre ee doonaya inay ajaanib dalka ku beeraan ajaanib dalka ku qabsadaan maanta loo kaco gabadha muwaadinada ee xildhibaannimadeedii xasaanadeedii mid gabadha xildhibaanada ee xildhibaannimadeedii iyo sharcigiiba dhinaca inta laga maray walaasheed lagu haysto iyo dalkii Soomaaliyeed oo maanta dhalinyarada Soomaaliyeed u maqan tahay. uma baahnin oday qabyaaladaysta oo maanta ka qeyrkeen naga reebaya. uma baahnin siyaasi calooshiisu shaqaystaa. maanta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa annaga haddaan DKM nahay urur baan inii sameynay dhalinyaroy ku soo biira aan dalkeena ku badbaadsano maanta sidii SYL oo kale kacdoon sameyno inagu tashana dalkeena. maanta oday qabyaaladaysta qabyaalad doonayno wax ku helo iyo siyaasi calooshiisu shaqaystaa looma baahna. maanta dhalinyaro u baaqaynaa maalin walba waan inii baaqnaa maalin walba waxaan wax ka xun iman doonaa waxa markaa taagan wax ka xun iman doonaa baan inaan ku baaqaynaa. war dhalinyaro maanta aynu dalkeena xoreysano. dalkeena maanta dhalinyaro u baahan yahay. mar haddii gabdhihii dhaqankii Soomaalida lasoo dhaafay macaa oo gabadhnimo xataa lagu ixtiraami waayey xildhibaannimo lagu ixtiraami waayey sharcigii sidaa loogu tuntay dhaqan bay Soomaalidu lahayd inay gabadha Soomaaliyeed la ilaaliyo oo loola dhaqmo sidii nin ragadee iyadoo xildhibaana wixii qadada ay diiday in loo adeegsado gabadh kale. gabadhii kale markii oo laba dumar ay isku dhaceen lagu wanjalo oo walaasheedu aan uga dhoweyn la yidhaahdo tanaa gabadhan la dagaalantay xildhibaanada iyadoo xildhibaanada muunay gacan loo qaaday weliba askari u qaaday ciidamada Soomaaliya. taas maanta dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa oon in leeyahay dhalinyaroy dalka idinkaale maanta aynu wax ka qabanno. waa maalinteennii. waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan idinku baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed dibad iyo gudab
meel kastoo joogtaan aynu maanta ka dhidhino SYL ba dhalinyaro Soomaaliyeed bay ahayd nimankii dalka gumeysiga ka saaray innaguna maanta kuwii la midkaa baynu nahay dhalinyarada Soomaalida waxaan aada ugu baaqayaa oo in leeyahay dhalinyaroy war anaga macayni sameynay daladii iyo ururkiiba intaa kusoo biira dalkeena aynu xoreysano ayaheena ka tashano wallaahi wabilaahi watallaahi Eritreyaan Kenyaan iyo Ethiopian way ku jiraan Eritreyaan wala Kenya dalkeena waxaa ku soo socday ee la doonaya oo ninka Ingiriiska uga yeeranaya dibadda kule kii muwaadinka halkan taagan bangiga dhex u qabanaya gabadhii ka hadashana lagu xiraya maxaynu sugaynaa eegnaa maanta inuu haray sheegay waxaynu haray maanta ay sugnaa waa maxay waxaan ku baaqayaa oo walaaladii dhalinyarada Soomaaliyeed maanta aanu dhalinyaro baan aan leeyahay maanta waxa jooga hadii garoon waxa bari iman doona garan mayno maanta wixii jooga hadii ka qaban weyn quwadda koobaad ee dowladda ama ummadda yeelatana waa dhalinyarada xiluu nin kasta ugu xoog badan weeyaan xiluu ugu karti badan weeyaan waxa weeyaan waxaan leeyahay maanta aynu dalkeena u tashano samata bixino ayaheena ka tashano dalkeeni oo barwaaqa aynu odayani siyaasiyo aynu haddii laba cisho kaliya lagu kaco laga saarayo aynu dalkeena halkaa uga fadhinaa oo dalkeena inagoo taagan inagu dul iibsanaya Nelson Mandela keliya South Africa samata bixiyey maanta Soomaaliyeed cudurkeena dil waa qabyaalad waxayna kala qoqobay waa qabyaalad Ingiriis waxa reejin halkaa marmariyay shanta meelood wuxuu laynagu qaybiyay reer galbeed waa qabyaalad weeyaan iyagu ma aynu ku beeray maanta waxaan inku baaqayaa oo in leeyahay war anaga daladii ni sameynay DKM hogaamiyaashooda hogaamiyaha noqdaba hadda doontaan oo wallahi wabillahi watallaahi aan ku gudoomiye ku meel gaaranahay ana ku wareejinayay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.